saacadihii aynu kasoo gudubnay dadka baraha bulshada adeegsado ayaa intooda badan si la yaab leh uga falceliyey dabaaldega uu asad xaaji ugu dabaaldegayay 1 milyan ee subscriberska iyo sidoo kale abaalmarin uu ka helay ama ka guddoomiyey shirkadda youtube-ka taasi oo uu la wadaagay asxaabta inta badan ku xidhan janalkiisa xilligii ay garbihiisa ka muuqdeen taageerayaashiisa iyo sidoo kale asxaabtiisa team 27 iyo sidoo kale walaalihiis ayaa waxa ay taageero xoogan u muujiyeen iyagoo kula damaashaadaya islamarkaana la qeybsanaya farxadda gaaridda mid ka mid a riyooyinkiisa nolosha iyo sidoo kale guusha isaga usoo hoyatay oo ahayd mid qaali ah xilli dhowaanahanba weerar kala duwan lagu hayay asad xaaji iyo sidoo kale walaalihii ama qaar ka mid a dadka reer maleeshiya ayaa markii ugu horreysay muuqaal uu kasoo muuqday muddo 5 cisho oo ka maqnaa youtube-ka ayuu kusoo bandhigay shahaadada ama abaalmarinta youtube-ka uu ka guddoomay iyo sidoo kale guushaasi waxay uga dhigan tahay oo uu ku sharaxay asad xaajiyow ayaa inta uusan furin abaalmarintaasi dadweynahana la wadaagin waxa uu hambaliyeeyey mid qaar ka mid a dadka ku xidhnaa bilow ilaa imika oo guushaasi usoo hoyatay imikana weli kusii xiran janalkiisa waxa uu sheegay in muddo 2 sano iyo bar ay ku qaadatay halka maanta uu taagan yahay in uu soo istaago tanina ay u tahay arrin aada u weyn marka loo fiiriyo dadaalka juhdiga wakhtiga faraha badan ee ku bixiyey iyo sidoo kale fideoyadii kala gedsanaa ee uu baahinayay qaar ka mid a dadweynaha ku xidhan kuwaasoo intooda badan ay la dhacayeen taageerayaashiisa ay noqotay waxa uu uga bedelanaa dadka kale ee youtube-ka adeegsado kuwaasi oo orod ku dhaafay isaga sidoo kalena uu noqday youtuberkii ugu weynaa uguna caansanaa dhanka bulshada soomaaliyeed marka la eego afka soomaaligana adeegsanaya helayna ama gaaray guushaasi aadka u weyn iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey cabasho xoogan ay ka jirtay dhinaca social media marka la eego dadka reer maleeshiya oo iyagu eedamo kala duwan loo jeedinayo oo ku aadaneed in ay dhagaha ka fureysteen in ay markaasi xanuunka murugada iyo sidoo kale welwelka la qaybsadaan gabar soomaaliyeed oo iyaduna markaasi kala soo muuqan jirtay janaladooda islamarkaana reer maleeshiya jaarkoodana ah taasi oo geeri ay ku timid wiil ay dhashay sidoo kalena iyadoo iscilkaabaysa ay kasoo muuqatay youtube-ka islamarkaana dadweynaha ay la wadaageysay xanuunka uurkutaalada iyo dhacdadaasi waxa iyadu ay uga dhigan tahay dadka reer maleeshiya oo ay sheegtay inaysan ahayn dad aan axsaan lahayn dad aan wanaag iyo walaalnimo iyo derisnimo iyo dadnimo midna aan lahayn inkastoo arrintan ay ahayd mid gebi ahaanba imika u muuqato inay soo afjarmatay ayaa haddana asxaajiyo waxa uu si kooban ooga hadlay dhacdadaasi maalmihii ugu dambeysay waxaana u cudur daartay maadaama uu isaguna xanuunsanaya sidoo kalena baaritaan caafimaad uu maraya xaaladiisuna ahayd mid waxoogaa marka loo fiiriyo aada markaasi u cusleed xilligaasi si kastaba haatee arrintan iyo waxay uga dhigantay ayaynu dul istaageynaa marka hore subscribe noo saar janalkan lagaree muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada si dad badan aynu u hanano aynu kusii soconne muuqaalka iyaga faahfaahinta waxyaabaha aynu kasoo xiganayno asad xaajiyo iyo sidoo kale sida kala duwan ee ugu dabaaldegaya guusha 1 milyan ee subscriberska dhowaaneed markii dadka reer youtube-ka intooda badan ay iyagu aada markaasi ula damaashaadayeen uguna hambaliyeen qaar ka mid a dadka 1 milyan ee gaaray ee farakutiriska dhinaca youtube-ka marka la eego waqal studio oo janal lagu baahiyo heesaha cabdi askar tube sidoo kale asad xaajiyow iyo sidoo kale king sikay oo ugu dambeeyay imika sharmaboy iyo sidoo kale darisle cabdi waxaana u muuqataa imika dadka soomaaliyeed kuwoodii ugu saameynta badnaa in haatan ay waqti iyo juhdiba gelinayaan sidii horumar kala duwan ay uga sameyn lahaayeen dhinaca youtube-ka sidoo kalena bulshadooda si ay ugu faanto iyagu noqon lahaayeen iskooradaasi waaweyn kuga jebiya waxaana marka la eego dhinaca social mediaha dadku ay aada uga xifaaltamayaan tartan xoogan oo la xidhiidha dhinaca guushaasi midaasi mid la mid a iyaguna ay doonayaan inay gaaraan kuwa iyaguna imika aada ugu dhow janalada kale ee gaaray 1 milyan si kastaba haatee bal guushan iyo waxay uga dhigan tahay ayaynu eegeynaa dhinaca social media marka la eego saameynta iyo in qofka uu haysto 1 milyan oo subscribers kolley 1 milyan ee subscriberska waxyaabo badan ayuu qofka ka dhaxli karaa nafsiyan guul ayay u tahay isaga horumar ayay u tahay si marka loo fiiriyo fursado iyo jaanisyo badan waa uu ku helayaa milyanka subscriberska waxaana ka mid a waxyaabaha uu ku heli karo in shirkadaha ay soo dalbadaan dhinaca xayeysiinada janalkiisa maadaama uu yahay
qof janal heer sare haysta. Shirkadaha marka la eego dhinaca youtube-ka oo kale muuqaalada uu ku baahinayo maadaama ay yihiin kuwo markaasi saameyn u yeelanaya, haddana isaga qudhiisa guushaasi ay uga dhigan tahay guul aada u sareysa. laakiin maadaama dadkeena soomaaliyeed imika iyagoo adeegsanaya dhinaca social mediaha muddooyinka ugu dambeeyana ay aada usoo lawajibaarmayeen tirada dadka soomaaliyeed marka loo fiiriyo xiliyadii hore oo ay mid dhif ahayd in la arko qof soomaaliyeed oo fahansan aaladahan teknolojiyadda imika soo baxay haddii ay noqon lahayd aaladahan casriga digitaalka, aabka sida tiktoka iyo aabyada kale wixii ka dambeeyey 2013 14 15 ilaa 16 17 inkastoo tiktoka aada moodo in africa uu soo gaaray 2017 ilaa dabeeqadii 2018 dad badan ilaa imika ay adeegsanayaan. laakiin aaladahan gadaal laga hindisay iyo dhinaca tartanka marka la eego bulshada soomaaliyeed ay inta badan oga dhex muuqanayaan dhinaca bulshada marka la eego bulshooyinka kale caalamka. waxaa markaasi aynu aragnay dad badan oo ku dhiiranaya in ay aada waqti u geliyaan barashada afka soomaaliga maadaama dadkeena soomaaliyeed saameyn xoogan ay ku yeesheen social mediaha. dad badan oo ciwaano kala duwan haysta oo qowmiyada kale oo waxaad arkaysaa isu taxaluujinaya sidii ay u baran lahayn luuqadda si iyaguna followers iyo sidoo kale dad ku xidhan ku taxinaada ay uga helaan bulshadeena maadaama dadkeena imika social mediaha door weyn ay ka qaadanayaan. waana qayb ka mid a waxyaabaha lagu faani karo dhinaca social mediaha marka la eego soomaalida guusha ay ka gaareen, inkastoo ay jiraan arrimo kala duwan oo bulshadu inta badan ay ka dhaxasheen oo saameyn aanu wanaagsaneyn dhinaca social media marka la eego isqabqabsigii oo aada u batay, nacaybkii oo batay, reero badan oo ku burburay social media, iyo sidoo kale khilaaf aanu dhammaaneyn oo social media muddooyinka ugu dambeeya hareynaya bulshada soomaaliyeed iyo arrimo kala duwan iyo qabyaaladii oo soomaalidii weli social mediaha ay uga daba timid oo imika aad moodo xitaa qabyaaladda in ay noqotay waxyaabaha imika lagu faanayo dhinaca social mediaha. aanu soo koobay dadkeena soomaaliyeed kuwooda maanta guulaha waaweyn ka gaaray dhinaca social mediaha waxaan ugu baaqaynaa oonu faraynaa in ay mar walba ku dadaalaan sidii magac wanaagsan, sumcad wanaagsan, taariikh wanaagsan ay bulshada uga gudbin lahaayeen, gaar ahaana dadka jinsigooda ay sitaan ee soomaaliyeed. sidoo kalena ay isku dayaan iyaguna in ay bilaabaan barnaamijyo ay ku caawinayaan dadka markaasi danyarta ee ku darufeysan. dadkii waa ay qaxeen, dad badan soomaaliya ay maanta waa ay ka qaxeen, inkastoo soomaaliya dad badan ay ku hareen, laakiin abaaro marka la eego dhibaatooyinka amni darada, barakaca, waxyaabaha ka jira dhulkeena hooye oo u baahan in wax laga qabto. runtii qof marba hadduu saameyn leeyahay oo uu caan yahay, ama siyaasi ha noqdo ama ha noqdo qof maalqabeena ama qof social media isticmaala si lamid ah dhalinyaradan, waa in ay isu taxaluujiyaan oo inay istaagaan sidii ay iyagu hormuud ugu noqon lahaayeen dadkeena soomaaliyeed dhinaca gaaridda iyo in kaalmadooda ay gacan weyn ka geystaan. subscribe noo saar muuqaalkan inta ayaan kusoo gabagabeyneyna. la wadaaga saxaabtaada gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha koowaad ee hela muuqaalkan. waad mahadsantahay.